marka uu horeyso waan islaamay ummad Soomaaliyeed oo quruxda badan meel ba joogtaan caafimaad ku waara bartani waa bartiini waa barti xoogga wadaniinta ummad Soomaaliyeed halkan waxaan ka soo gudbinaa wararka xaqiiqda ee marka la hadalhayo ayaan soo baaraan degnaa markaan soo ogaanana waxaanu jecelnahay in ummad Soomaaliyeed la wadaagno soo dhawaada daawasho wanaagsan waxaanu ka hadlaynaa nimanka iga dambeeya waa nimanka la shaqeysta mise u shaqeeya ninka leeyahay Ahmed Rashid waa nimankii dilay Maxamed Aamin ee arkaysan sida xun u garaacay nimankaas waxay baadaan tukaamada ku yaala Nairobi dhammaan ayay hor istaagaan subaxii habeenkiina way tuntaan qamriga cabaan maandooriyaha dhanbi cabaan geeday soo cabaan ayagoo xoogay ka soo aan laga muuqanin in nimankan maandooriyaha isticmaalaan oo qof caadi ah u eeg ayay hor yimaadaan tukaamada ummad Soomaaliyeed lacag baada ayaa la siiyaa waa dad la yaqaano kaaga si daranay sidoo kale qofkii raba inuu Nairobi ka heeso oo qurbaha ka noqday baad ayay ka qaadaan ayagu waxay ogolaana kama dhacdo Nairobi hadii hees tahay hadii xaflad tahay walow kana aroos aha tadeerto ayaga ayaa looga dambeeyaa hadii kale aroos xitaa duu dhacayo waxay sameeyaan arbishaad ayay sameeyaan Wisbi waxa loo dilay oo aniga la sheegay li xaqiijiyay markii loo qorsheynayay Sharma Boy dil wuxuu dhex fadhiyay nimankii uu qorsheynayay ayuu asoo ku jiray meeshaas asaga ayaa fashiliyay oo sheegay Sharma Boy in nimankan ay rabaan in lagu dilo Nairobi oo loo qorsheeyay in Sharma Boy la dilo sheekadaas fakatay ayaa waxa la ogaaday in Wisbi asagu dhiibay waana sababta maanta lagu leeyahay waa la garaacay anigu ma hubo 100% in la garaacay laakiin waxaan maqlay in loo dhaartay loona cagajugleeyay YouTube-kiisii aan baalkii intii loo yimaaday laga qaatay kadibna masawiro laga qaatay masawiro waliba foolxun sidii aniga tahay ma garanaa foolxumada la sheegay masawiro foolxun iyo video foolxun ayaa laga duubtay waxa la yahay hadii baraha bulshada ayaan soo dhigaynaa asaga waa la aamusiyay sida war aan ku maqlayna waxa la sheegay inuu isla maanta xalli doono wax walba ay ku sameeyaan masawirada oo hawada u dir doono dhigi doono waxa rabtaan sameeya marka sida wada maqasheen in la garaacay ninka iga dambeeya in nimanka la masawiro tuugada ah ay u jeedaan in lagu haysto Sharma Boy maxaan noogu sheegtay waxaan anagu ka wada hadalay waa sababta lagu haysto waa sababta maanta lagu leeyahay waa lagu garaacay waa dhibaatada waxa uu keentay inuu Sharma Boy asugu badbaadiyay marka waxaad ogaataan Nairobi waxa taala hadeertaan dacwad oo ka taala ninka uu leeyahay Ahmed Rashid xildhibaano kamid ah xildhibaanada Soomaaliya ee waddanka Kenya ayaa hadda faraha la soo galay waliba xildhibaano 3 nin sida la sheegay oo waliba ku jiro midka ugu afka dheer ee Mandheera ka soo gala ayaa hadda waxay leeyihiin hawlan ka hari doona ma ahan ilaa dad loo xiro dadna xilal loo qaado sidoo kale waxa jirta Ahmed Rashid wuxuu kamid yahay booliiska ka shaqeeya waddanka Kenya gaar ahaan Nairobi maxaa dhigi jiray xarunta mise district Kisli Soomaalidu degan tahay ayuu qaabilsan yahay wuxuu asaga shaqaaleysiiyay 3 wiil oo Soomaaliya oo si run ah u shaqeyso iyo sidoo kale 27 nin oo kale oo gabdho ku jiraan oo beena oo kaarar fayga loo sameeyay oo shaqeynay laakiin iskaga dhigay in ummad Soomaaliyeed ay kamid yihiin dharcadka waddanka Kenya maadaama ay haystaan aqoonsigii dawladda Kenya lagu shaqeynayay dharcadnimada ee ummad Soomaaliyeed oo soo baxayaan ay tahay sharci dhaba oo asagu u sameeyay haystaana waa sababta tukaamada iyo xafladaha Kenya laga dhigayo iyo awood walba xaflad lagu sameeyay walow kana aroos ahaato waa sababta ayagu u hor istaagaan inuu yiraahdaan ma dhici karto awooddaas waxa siisay awood dawladnimo ayay ku shaqeynayaan been waaye hadin la sii daba galo uma shaqeeyaan waxay sameeyaan waxa loogu sameeyay waa 30 qof oo madax u yahay Ahmed Rashid lacagaha la soo shaqeeyo waxa gacanta laga geliyaa Ahmed Rashid asaga ayaa u kala qaybiya waa shaqaale u yihiin marka nimankaas isku xiran ayay Nairobi u xiran tahay maanta fanaanka ma hayso karo mana tagi karo hadaysa ayagu dhihin fasax ayaa leedahay kala imow ayaga qayb waa in lacagta loo ogolaadaa intay sheegtaan kadib ayaa fanaanka Soomaaliyeed iyo qofka mas'uulka ee Soomaaliga xaflad sameysanahay kadib ayuu xafladiisa sameystaa dhibaatada halkaas ka taagan tahay waa inaad ogaataan maxkamad ayaa la saari doonaa Ahmed Rashid waxaan u badan in la xiri doono
xilka hadda uu hayay waa laga fariisiyey wax shaqaa dowladda Kenya uma hayo ilaa in maxkamaddu dacwadeeda ay dhammaato shaqadii waa ka fadhiya Axmed Rashiid intaas ummad Soomaaliya ku bishaaraysato ninka leeyahay Wisbina waxaanu ka filaynaa wax walba laga duubtay si walba loo garaacay si la sheegay in la garaacay waxaanu ka filaynaa inuu soo hadlo soona jawaabo ummad Soomaaliyeedna la soo wadaago geesinimadii iyo xiniyihii Sharmaboy oo fuulay asaguna inuu fuulo ayaan ka rajaynaynaa ummad Soomaaliyeed inay wax walba ogaataan aan jecel lahay xooga wadaniinta haddaan ka mid nahay ummad Soomaaliyeed ha noolaato